لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو dhammaan bulshada aan jeclahay ee ku xiran page-keena Kasmo Hospital iyo dhammaan inta oo video gaar doono waan salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan jeclahay inaan maanta soo gudbiyo fariin aad muhiim u ah oo aan dareemayo in bulshada ay u baahan tahay in laga wacyigeliyo. Fariintaas wax kale ma ah, waxa waaye fariinteeda maanta waxaa aad u batay ilmaha naloo keeno ee isbitaalka la keeno ama guud ahaanba ilmaha la iisoo sheego inay dhibaatoonayaan. Ilmahaas oo ka dhibaatoonayo wax yar oo fudud, laga yaabo in hooyooyinka haddii wax yar laga saxa inay wax weyn u tari lahayd. sidaa darteed marka maanta waxaan doonayaa inaan wacyigelin yaroo gaaban siiyo dhammaan hooyooyinka iyo dhammaan aabayaasha doonaya in ilmahooda shubanka soo laabtay ay yareeyaan ugu yaraan. waxaan ku siin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo qaab yaroo gaaban iyo talooyin gaaban oo ku aadan sidii aad u yareyn lahayd ama aad ugu hortagi lahayd in cunuga yarka ah ee aad dhashay oo shuban ku yimaado. hooyo, haddii aad daawanayso waxaad u baahan tahay in ilmaha yarka ah aad ka taxadirto sida aad ugu taxadirayso dharkiisa iyo raashinkiisa, inaad ugu taxadirto caafimaadkiisa. sidaan ognahayba shubanka ilmaha wuxuu u keenaa tabardaro aad u fara badan muddo yar oo kooban oo baaba'o. shubankaasi dhibaatadaas wato ayaa waxaa laga yaabaa hooyada in wax yaroo gaaban haddii aad weydiiso in iyada ay sabab u tahay. hooyooyinka qaar waxaan ku arkay ayagoo la jecel in cunugooda uu cayilo ayay waxay siiyaan raashiino kala duwan asiga oonan gaarin. hooyo, ha ku fikirin in cunugaaga aad siiso raashin kasta oo aad cunayso. taasi waxay qalal ku keeni kartaa difaaca jirka cunuga yarka ah iyo dhammaan caafimaadka guud ee cunugaaga. in cunugeeda ay siiso raashiino aad u badan oo fiican si uu cayilo cunuga, laakiin waxaan aad uga xumahay inuusan gaarin da'dii uu raashin walba cuni lahaa. waa cunug jiro 7 bilood ama 8 bilood. maxay kula tahay cunug 7 bilood iyo 8 bilood jiro? waxaan aad ula yaabaa hooyooyinka jecel inay ku cayiliyaan ilmahooda raashinada laga yaabo inay shuban u keenaan ayaga. waxaa kaloo laga yaabaa hooyada iyadoo la jecel inay cunuga si fiican u dharjiso ayaa waxaa laga yaabaa iyadoo naaska siinayso inay caano kala duwan inay siiyaan si uu u sii cayilo, laakiin ma ogo hooyadaas waxay u keentay cudur. sababtoo ah caanaha aad siinayso ee naaska ayaa caano ku filan. waxay u baahan tahay hooyo kasta inay dhakhtarka la kaashato inta raashiin oo la siin karo ama sida qaabka loo siinayo. hooyooyinka badanaa raashiinada ay siiyaan ilmahooda ma ka fiiriyaan cunuga amay dhibaato u keentaa. cunugiion bahal ku kicin oo dhib kala jirin ayaa laga yaabaa in hooyada ay siiso raashiino kala duwan oo isku qasqasan. sababta ugu weyn ee u shubmo cunuga hooyada ee haysato waa inay ka bedeshay caanihii hore una bedeshay caano cusub, ama ay siisay raashiin calooshiisa ay u dulqaadan weysay inta badan. taasi waa sababta ugu weyn ee dhakhtarka uu u weydiiyo raashinka, waana sababta ugu weyn oo keenayso in cunuga caafimaadkiisa saameyn ay ku yeelato raashinkii la siinayay. raashiino badan oo siiso soo kordhismaa jiro. taas macnaha waxay fududeynaysaa in hooyadii ay ciyooba ku sheegto inay mardhow caano ka bedeshay, laakiin caanaha la bedelay ayaa cunuga saameyn ku yeeshay. marka waxaan leeyahay shubanka guud ahaan maadaama uu keeno tabardaro fara badan iyo dhibaatooyin fara badan, waxaa weeyaan in hooyooyinka ay bartaan in ay ka ilaaliyaan raashiino kala duwan
ay isugu darayaan, sida raashinka bariisay siisay subaxda, mamacaanis canjeeray siisay, maraqay ugu darta canjeero maraqay siisay, duhuraa la gaaray bariisay siisay ambaasay siisay, habeenaa la gaaray cambuulaa la cunaya waa lagu guray. cunugiina calooshiisa ma gaarin. caloosha waxay la mid tahay sida adi a koraysa caloosha. calooshaada ma la qabsan karto haddii aad cunug yar tahay, lama qabsan karto raashiina culculus. waxa ay keliya ay borses garayn kartaa ama ay shiidi kartaa raashin yar oo fudud oo la fahmi karo, 1 ama 2. laakiin markii calooshaada oo yar la siiyo raashiina fara badan oo kala duwan, lama qabsan karto. sidaa darteed hooyo iyo aabba waxaan idin sheegayaa ilmihiina ha u keenina jiro. haddii aad jeceshihiin inay cayilaan way iska cayili doonaan, laakiin adigoo cayil doonayo fuuqbaxa u keenin. waxaa jirto ilmo badan oo hooyooyinkooda ay sabab u yihiin inay fuuqbaxaan. taasna wax kale ma ahane waa sababta ugu weyn oo ay ilmaha la shubmaan baryahan dambo. sida maaragtay dhaqaatiirta aada ugu soo laalaabato ilmaha shubanka u keenay caano la bedelay ama raashin la bedelay ama raashino dheeri oo la siiyey ama raashinadii hore laga gooyey aada ay u badan tahay. sidaa darteed marka qof walba oo jecel in ilmihiisa wax uu siinayo in uu maaragta waxaa weyaan ay noqdaan wax caafimaad leh, waxaan kula talinayaa in uu la kaashado dhakhtarka uu ku xiran yahay. waxaan leeyahay ka dhakhtar ahaan waa inaad ku xirantaa dhakhtarka adiga aada leedahay. qof kastaa wuxuu yeelan karaa dhakhtar gaara. haddaba la kaasho dhakhtarkaaga gaarka ah xanuunada soo darsa cunugaaga, si gaar ah markii aan ka hadlayno jirooyinka ku saabsan shubanka iyo raashinada isbedelkooda. waa inaad kala kaashataa dhakhtarkaaga. waxaad samayn kartaa haddii cunugu uu yaryahay uu yahay 6 bil wixii ka hooseeya, waxaa kuu furan oo keliya inaad naaska caanaha keliya siiso. waxaan uga hadli doonaa barnaamij gaar ah oo la yiraahdo naas nuujinta. laakiinse si hordhace cunuga waa in la siiyaa naaska hooyada oo keliya 6 bil ugu horeeyo. waxaa jira hooyooyin fara badan oo dood ka qabo oo dhahaya 6 bil naas keliya see loo siinayaa. laakiin waxaad ogaataa naaska keliya inuu u yahay biyo, u yahay raashin, kuna filan yahay. hooyooyin badana igula doodo waxay yidhaahdaan kuma filna naaska. laakiin dhibka jira wuxuu yahay hooyadii waxaa laga yaabaa inaysan aqoon u lahayn qaabka naaska loo siiyo, iyo naaska markii lagu celiyo in uu caano badan yeelan doono ma ogo. waxay u maleeyaan oo keliya naaska caanaha yarka oo markaas ku jiro inay ku eg tahay. laakiinse waxaan u sheegaynaa in naaska nuujintiisa uu keenayo in caano badan ay yimaadaan. qodob waa qodobkaas oo ah in 6 bil ugu horeeyo naas joogto ah la siiyo. 6 bil marka uu dhaafo 7 bil 8 bil 9 bil maxaa la siinayaa? waxaan kula talinayaa hooyooyinka in ay siiyaan naas nuujinta ka bacdi naaskiyo loo wado balaas waxaa loogu darayaa raashina fudfudud. hana ka badinin oo ha dhihin cunugii ha ii cayilo. sidaan sheegayn waa dhibaato haddii aad ku fikirto in aad ku cayiliso asigoo yar. tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka haysto bulshadeena Soomaaliyeed. waxba cayila u raadinin ee caafimaad u raadi. macnaha raashin caafimaad la si waxaa kale oon maanta inaan u digaan doonayaa hooyooyinka qaar waxay jecel yihiin markii ilmaha shubanka uu la yimaado waxay yiraahdaan kaniiniga TB la siiyo. daawo TB ha isku siinin. ilmaha yarka ah daawo TB ha isku siinin, sababtoo ah iyadoon loo qorin dhakhtar qorin. dhakhtarkana laftirkeeda waa dhibaato badan tahay. qolo dhakhaatiir sheeganaysana way jirtaa oo ku siin doona daawada TB-ga. waxaan kugula talinayaa dhakhtar aad ku kalsoon tahay oo fiican inaad la raadsato, maxaa yeelay daawada TB-da lama qaadan karo ilaa dhakhtarkeedii uu soo qoro lagana hubiyo. qof aanan TB qabin haddii la siiyo daawooyinka TB-da waxay keenaysaa dhibaato fara badan oo laga dhaxli karo. sida aan uga hadli doono barnaamijyada soo socda, maxaa yeelay barnaamijkan iyo barnaamijyadii aan hore usoo jeedinay waa wacyigelin aan ugu talagalnay
bulshada wacyigoodana kor ugu qaadno. Barnaamijka Wacyi-kaab oo aan maanta diiradda ku saarnay shubanka iyo waxyaabaha la xiriiro, waxaan jeclahay in aan sii wadi doono inta karaankayga ah, bulshadana aan gaarsiin doono wax walba oo dhibaato u keeni karo. Waxaan jeclahay in bulshada sida aan ugu damqanayo ayagana isugu damqadaan oo ay iska ilaaliyaan waxa dhibka u keena dhexdooda. Waxaa kaloo aan jeclahay hadduu Ilaahay yiraahdo ama hadduu Eebbe yiraahdo, waxaa kaloo jeclahay in bulshada dhexdeeda isgaarsiiyaan fariimaha qiimaha badan leh oo aan ugu talagalnay dadka dhibaataysan. Mar walba ma wada gaari karno, meelo kala duwan ay joogaan, gobollo kala duwan ay joogaan, deegaano kala duwan joogaan. Maadaama aanan gaari karin, hadalkeenan gaarsiin karnaa. Waxaan gaarsiin karnaa share inaan dhahno oo videogaas dad fara badan uu gaaro. Waxaan rabnaa marka in dadkaasoo idil uu gaaro oo ay ka faa'iidaystaan cilmiga yar Ilaahayna siiyey. Ilaahay waxaa cilmi yaruna siiyey, inta yaruna siiyeyna inaan kaydino ma rabnee, in dadka aan ugu faa'iideynaan rabnaa. Hadduu Ilaahay yiraahdo, dhakhaatiirta oo dhan waa isku mid. Dhakhtar kasta wuxuu doonayaa inuu cilmigiisii dadka gaarsiiyo. Waxaan jeclahay anigana sidoo kale inaan cilmigayga, caqligayga iyo kartidayda iyo waxaan awoodo dhan inaan isugu geeyo in bulshada dhib kasta oo u imaanayo aan ka taxadirno dhammaanteenba.